السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذن سلامي إلهي وحاين إذن كجرجينا يا عمري دير عبادة دميستراني عافمادا ملك استدون إذا كجوكتان كسو دوادا channel كس أنفع وانيو أحولاشين شكرا عدن ما أنتو وحان جعليستينان إذا لو ذاقو شيكو ير أو قابن أو ديرجلين مضن وحجري جرتي إسلام أو صدق أما نقطي أييو إسلام توحيد أشياء ويلي قبر wiilkii gabadhii marka way weynaadeen oo guur ayay gaareen caruurna way dhaleen marka maalin maalmaha kamid islaantan ayaa waxa la hadlay nin sababta uu la hadlana waxay ahayd islaan maalin walba oo waaga bariya oyso islaantii dariska waxay u bixiyeen islaanta oysoyda ah marka islaantii oysoyda ahayd ayaa looga dhigay magac naanays ah islaanta marka waxay caan ku ahayd magaceeda maxay ahayd oysoy maadaama dadkii oo dhan ay isweydiin jireen islaantan sababta ay mar walba u oyso iyo maalin walba dariska nin kamid ah ayaa wuxuu go'aansaday inuu wareysto weydiiyo waxa ka oohaysiiyo waa walba islaantii ayuu wuxuu dhahay maxaa ka oohaysiiyo ma ii sheegi kartaa waxa ka oohaysiiyo waa walba islaantii ayaa waxay tiri waxaan u ooyaa maalintii qorax soo baxdana waan ooyaa maalintii roob da'ana waan ooyaa waxa iga oohaysiiyay sababteedana haddaan kuu sheego waa sida tan waxay tiri gabadhayda iyo wiilkayga kaliya ee ilaahay ilmo iga siiyay guur ayay gaareen way guursadeen caruur ayay leeyihiin haddana ana ayeeyo ilaahay ayuu saas iiga dhigay labadaba markuu roobka da'ana waan ooyaa sababtoo ah wiilkayga ayaa wuxuu haystaa ganacsi galeyda oo lagu qalajiyo gabadhaydana waxay haysataa ganacsi ku saabsan inay iibiso dalada ama umbrella in Ingiriis waxay tiri maalintii roob da'o waxaan aad ugu ooyaa wiilkayga oo waxaan ka walwalaa in galeyda ay u qalali weyso oo wax ka iibsado uu waayo sidaas darteedna caruurtiisa uu waayo wax uu siiyo ama ijaarka iskaga bixiyo ama waxbarashadooda oo ku maareeyo maalintii qoraxda soo baxdana waa ooyaayo waxaan ka walwalaa maxay ahayd gabadhayda in laga iibsan waayo daladihii oo ganacsi la'aan ku dhaco ayadana sida ay ku weyso waxay nolosheeda ku maareyso sababta iyaga oo hesiisa marka waa sidaas ay tiriniho ninkii ayaa wuxuu ku yiri ma kula talin karaa oo ma kula wadaagi karaa ra'yigayga iyo khibradeyda markaas waxay tiri ha fadlan soo dhawow markaas wuxuu dhahay ma ogtahay horta farxadda inay adiga farahaaga ku jiraan mid kale nolosha sida u aragtid ayaad ka dhigan kartaa mar walba markaas waxay tiri bal ii sheeg oo ii faahfaahi markaas wuxuu dhahay meesha aad ka aragtid hadda meesha aad u ooysid markuu roob da'o si wiilkaaga uu u helin maxay ta ganacsi la'aan ay ugu dhicin u bedelo inaad u faraxdid gabadhaada oo niyada shido oo niyada farxad galiyo oo isku sheeg in gabadhaada ganacsigeed u hagaagay ee nolol fiican heli doonto maalintii qorax jirtana booskaad ka ooyn lahayd u farax wiilkaaga oo ogow in wiilkaagii ilaahay idinkiis wax laga iibsan doono maadaama galeeyda qoraxda u qalajin doonto ay galeeyda qalalsanna laga iibsado marka sidaas darteed wuxuu dhahay booska aad adiga go'aansatay inaad ooysid oo farxad la'aan ku noolaatid waa go'aan adiga aad goosatay balse waxaad u bedelan kartaa farxad joogto ah iniyad samaan waxaasoo kaloo samayn kartaa inaad u duceysid marba midka kale tusaale ahaan markuu roobka da'o oo maxay ahayd wiilkaaga ay isleeda wax lagama iibsanayo u duceey in ilaahay faraj meel kale uga furo meeshii marka qorax soo baxdana aad isleedahay gabadhaada lagama iibsan doono dalad waayo looma baahno maxay ahayd u duceey ayadana inuu ilaahay faraj kale u furo balse u farax wiilkaaga si markaas aad ugu noolaatid farxad joogto ah oo reyn joogto aad u haysatid marka walaalayaal qisadan ama sheekadan waxa ka baran karna maxay tahay furihii farxadda ilaahay faraha anaka noo galiye mar walba waxa aan haysano waa inaan ku kalsoonaano mar walba waxa haysano waa inaan ilaahay ugu mahad celino mar walba waxa haysanana qaybta fiican inaan ka eegno waa intaas iyo nabadgelyo fadlan dadka la sii wadaag like saar adoo mahadsan waa inoo mar dambe xiise leh hadii ay baha wada la idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh